Milo wuxuu bilaabay inuu u dagaalamo sidii uu maamuli lahaa jirka Tony. Ugu dambeyntii ruuxii Milo ayaa jirka laga saaray si uu uga badbaado afarta ruux oo sii dhibaya. Tony wuxuu bilaabay inuu ka ogolaado inay rabitaankooda fuliyaan. Markii Milo noolaa wuxuu ahaa tuug u eg Robin Hood, wuxuuna dadka taajiriinta ah ka xadi jiray si uu dadka saboolka u siiyo. Wuxuu horey u xaday dad badan oo taajir ah, laakiin mar ayuu ganacsade taajir ah u shaqaaleysiiyey inuu xado urur shaambado oo u dhaxlay wiil 10 jir ah. Waxay ahayd xaashi dhammaystiran oo ay ku jireen shaambadihii Zabilin ee 1930, waxaana qiimahooda lagu qiyaasay in ka badan $1 milyan. Milo wuxuu rabay inuu shaqada diido, laakiin lacagta loo balan qaaday aad bay u badnayd, sidaas darteed wuu aqbalay. Arrintaas ayaa damiirkiisa culays ku haysay tan iyo maalintii uu sameeyey. Wuxuu rabay inuu shaambadihii ku celiyo wiilkii yaraa. Tony wuxuu isticmaalay ciwaankii, wuxuuna aaday gurigii ganacsadaha. Milo wuxuu galay jirka Tony, wuxuuna si guul leh u helay shaambadihii oo uu sanado badan ka hor xaday. Markii ay ku dhawaayeen inay baxaan, eygii waardiyaha ah ayaa Tony arkay. Ganacsadihii ayaa maqlay cijitaanka eyga, wuuna soo orday. Milo wuxuu ganacsadaha ku canaantay wixii uu sameeyey, dabadeedna way baxsadeen. Tony wuxuu rabay inuu shaambadihii u celiyo wiilkii, laakiin gaarigiisa ayaa hor istaagay meel dibdamis loogu talagalay. Sarkaal taraafik ayaa ku ganaaxay $2600. Marka hore wuxuu ku khasbanaaday inuu saldhigga aado si uu ganaaxa u bixiyo. Saldhigga Henry ayaa Tony ka caawiyey inuu xaliyo arrinta ganaaxa. Markaas ayuu Tony xasuustay inuu fiidkii baran cashalo lahaa saaxiibtiis. Waxay qorshaysay inay Tony waalidkeed bartaan, laakiin Tony ma uusan iman, xitaa iyadoo la gaaray saqdi dhexe. Waalidkeedna waxay bilaabeen inay iska baxaan. Tony si dhab ah ayuu raaligelin uga bixiyey, wuxuuna ballan qaaday inuu mar kale soo daahin. Iyaduna waxay go'aansatay inay cafiso. Tony wuxuu shaambadihii ku celiyey wiilkii yaraa, kaas oo hadda noqday nin da'da dhexe ah. Markii uu arkay shaambadihii oo muddo dheer waayey, farxad ayuu la qayliyey. Ugu dambeyntii rabitaankii Milo wuu rumoobay. Baskii cagaarna ayaana agtooda yimid. Waxay u muuqatay in haweeney uur leh sugaysay. Milo wuxuu qof walba sagootiyey markii ugu dambeysay, dabadeedna baska ayaa la raaciyey. Tony wuxuu dareemay inuu ku faanayo inuu sameeyey wanaag. Markay Benny nooled waxay lahayd 2 gabdhood iyo 1 wiil. Rabitaankeeda wuxuu ahaa inay mar kale aragto carruurteeda ka hor inta aan dib loo dhalin, laakiin gurigii ay horey u koraysan jireen muddo dheer ayaa laga guuray. Helitaanka carruurteeda wuxuu la mid noqday in cirbad laga dhex raadinayo caws badan. Markii Benny ay rajadii oo dhan luminaysay, bisada wadada joogay ayaa xasuus ku soo celisay. Waxay xasuusatay in laga yaabo in deriskii jeclaa inuu xanaaneeyo xayawaanka wadada weli nool yahay. Waxayna tageen gurigii deriska. Deriskii wuxuu Benny ugu waramay labadeedii gabdhood. Labadooda si farxad leh ayay ula noolaayeen, oona qoysas wanaagsan oo iyaga u gaar ah. Laakiin meesha uu joogo wiilkeedii ugu yaraa lama ogeyn. Waxa kaliya ee la ogaa waxay ahayd in la korsaday. Waalidkiisii korsadayna ay meel badan u guuri jireen. Qofna ma ogeyn halka ay hadda joogaan. Tony wuxuu aaday hay'adii korsashada, isagoo rajaynaya inuu xog ka helo wiilka. Shaqaalihiina waxay sheegeen diiwaanada korshashadu ay yihiin kuwo sir ah. Xitaa qofka la korsaday laftiisa xaq uma laha inuu diiwaanadaas helo. Haddaba daawad waxaad la socotaan qaybteennii afraad ee taxanaheena.